waxa ay qaybtii saddexaad noo joogtay iyada oo ay inoo rahmanayd su'aal odhanaysa sidee aqalkan tirada badan iyo qaalinkan yari ay isku qaadan doonaan. waxay gorfeeyaanba oday Geedi Maxamuud iyo Xaliimo Xaaji Xuseen waxay ugu dambeyntii go'aansadeen in aqalka intiisa badan laga tago oo ay qaataan in yar oo reerku aanu ka maarmin. sidoo kale ilmaha yaryar ayuu oday Geedi Maxamuud ballan qaaday inuu reerba cunug u dhiibi doono. habeenkii dambe ayaa hayaanka garka loo soo qabtay waxaan lagu ballamay galab carrow iyo guure. inta hayaanka la soo yahay Xaliimo Xaaji Xuseen iyadu mana joogto mana maqna. waxaad is leedahay waa ruux ay waalidu ku soo fool leedahay. wax la soo socdaba dharaartii dambe ayay soo gaareen halka ay dhibicda roobku biyo dhigtay. xareeddu halkay waran tahay ayay cagaha soo dhigeen. soo xooluhu ha hamuun gooyaan maaha, soo dadkuna ha nasto maaha. Xaliimo Xaaji Xuseen si ayada waxay uga dhigan tahay in abaartii hore la joogo. waa ruux qalbigeeduba uu meel kala jiro. saq dhexe ayay iska soo toosaysaa, hurdaduna ay ka guuraysaa. mararka qaar ayaa cidlada isaga baxaysa. marka la weydiiyo la yiraahdo Xaliimoy, walbahaarkan faraha badani naftaada ayuu daana u geysan karaa. bay mararka qaar waxay ku warcelinaysaa garan maayo gacalkaygan iyo geerituu yahaye gurboodkayga yaaliyo guriga yaanan goyn karine mar horaan dagaalkaa la galay geeska noqon lah. waxayba leedahay waa hore ayaan ka dhinac diriiri lahaa saygaygii la qafaashay ee waxaanan goyn karinin waa ubadkayga yararka. halka ay noo joogto qaybta afaraad ee qisada Shawturaale yaraa waa inoo qaybta xigta haddii eebbaha weyne u raalli ka noqdo.